ورحمة الله وبركاته وإن السلام أصحابتا دمان تين مeel kasto joogtaan asxaabta nagu xiran waxaan idin wada caaw waxaana iiga baranin waxa waaye hadaad adigu yaabto waxaad arkaysaa wax ka sii hooseeya marka hadaad qof islaam tahay wixii ka hooseeyay inaad u gargaarto oo waxa ku dhaanta aad ku garab siiso iyo xaq ku waajib ku saarana anigu waxaan arkay caaw waxa idin wada qoys aniga aan ka aamusi waayay ka xasan ahaan aan ka aamusi waayay oo wallahi dareenkaygu uu sii waay inaan ka aamuso anoo page-kaasna ay 80 iyo 8 kun oo qof ay ugu xiran tahay marka waxaan rabaa qoyskaas inaad la dareen noqotaan walaalihii maanta u soo bixi lahaa qoysas xaaladda ay ku nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin waa nala arki doontaan waana idin tusi doonaa kulli qof walbo damiir leh oo damiir Soomaalinimo ama damiir Muslimnimo ay ku jirto kama aamusi doono qoyskaas nala socdo nala sadar muuqda liir su'aal ka dhan waa kana qoyska waxaan duubayaa qoyskan waa sagaalkii habeenimo iyo rubi marka waan ka ahaan waayay inaan ka sii maqnaado ilaa saacada ilaa inta waag ka baryayo qoyskan warbixintiisa kulay maamadana way idin warbixin doontaa qoyskan wallahi billahi aad iyo aad bay wixii qof bili aadana duruuf tii ugu weyneed baa haysa waayo ilmaha saqiirada waxa la ii sheegay inay laba habeen iyo laba maalmood dab loo shiday maamada xataa ul ku seexiyay tir marka iga seexan waayeen baahi la seexan waayeen marka inna ka aamusi doonin waa u maleynaya hooy ma haystaan joodari ma haystaan ilmaha yarka qaarkood bacaadka seexdaan qaarkoodna sajaayada yarta dadab loogu wada seexiyaa ilmuhu intaan ma ahan 9 caruur iyo hooyadood waaye maamadana idin warami doonto insha Allah soo dhaw bye waa dhawhay insha Allah waxa weeye anaga waa iska daroofeysanahay dad iska daroofeysan baan nahay dad maxay ahayd aan dab shidanin baan nahay maxay ahayd 9 ciyaal baan haystaa garoob baan nahay aabahood ugu dayray wuu ifuray wax aan haysano oo Ilaahay uu uumay malaha wax shaqo aan haystana malaha ciyaalkan yar yarka baan haystaa anugan yarka ah maxay ahayd maalmaha qaarkood inta ilmaha aga tagaan irahada meelaha baan dhagax iyo wax dhisme in kaga soo raadinaysi jooga la sii haya aniga maxaa ahayd calooshayda si ugu gudoomaysa alla yaabaan ku soo laabta mid dambay kaaga ridi doonaan ma ka silcin doonaan ma gaari waa jeeri doonaan intay banaanka ku wadaan maxaa ahayd wallahi billahi daruufta aan ku noolnahay ilaahiga boqorka baarig hay baan u sheeganaa Soomaali weyn walaalahana waxaan ka caawsaday aan ka caawanayaa inay soo caawiyaan waad maqlaysaan hadee Soomaaliyay waxa Soomaaliduna sideed bataatan waxay arkaan ya macnaheedu ay wax ka qabtaan waad arkaysaan qoyskan xaaladda uu ku jiro wallahi baan ku dhaartay hooy iyaga ay leeyihiin maanta ma degana guri walba waa laga soo ceeriyay waa ogtihiin guryaha maanta magaalooyinka ku yaala kira dadka la dhahaa kiro dadka guryaha leh ma fiiriyaan qofkan waxa ma haysta ma dhahan kiradii markay awoodi waayeen duurkan bay ku soo carareen ay soo degeen duurkiina way ku baaba'een wallahi habeen dhaweed waxa la ii sheegay inay ilmaha dab wax loogu shubo intii la waayay inay ilmaha yar yarka ay baahi la maxaan ku dhahay la seexan waayeen oo hooyadood ay waxay tiri intaan saan yeel garan waayay madaxii xanuunay yaan ul ku seexiyay bay tiri ul kasta lagu seexiyo cunugu haduu baahan yahay saqiirka ma gamayo marka ayagoon habeenkaas cashana meel ku ogeen shalana dab loo shidin waagu markuu bariyana aysan meel ku ogeen baa aniga u imaaday oo qoysaska dariska ii soo sheegeen anigu waxba ma awoodo amba gabar daruufaysan oo masaakiinaan iska ahay waxaan kaliya ku dhaama waxa waaye page TikTok baa ii furan dad badan baana igu xiran marka waxaan jeclaystay dadkaygaas waa bil Ramadaan baa nagu soo dhow bilii qeyrka badnaa baan ku dhex jirnaa bishan waa bishii Ilaahay wax walba laga magan gali jiray mootal fajaa laga duceysan jiray qofkan Ilaahay ugu dhawaan lahaydeen dadka Ilaahay ugu dhawaan lahaydeen maantay nolosha u dhisi lahaydeen waa dadkan waxaan Ilaahay dartiina kaga codsanayaa inaad qoyskan u soo gurmataan oo maanta xaaladda ay ku jiraan adinka sabab aan leedahay inaad uga saartaan oo nolosha u qurxisaan haddaad maanta adigu dharag la seexan lahayd caawa ayagu baahiba caawa la seexan laayihiin marka qof alla qofkii damiir leh ee caawana maqlaaya uu soo gurman doonaa waxa laaliyi wuxuu ku taakuleen kara oo qoyskaas ku soo garab istaagi karna wuu ku soo garab istaagi doonaa insha Allah waxa la idinku yaqaanaa in horta Soomaalida waxa lagu yaqaanaa inay markay sidaan xaaladan oo kala imaato is garab istaagaan isku gurmadaan is gacalsadaan
marka waxaan u maleynayaa qoyskan in qadin doonin ee soo gurman doontaan insha Allah aniga maamada hadda waxay ii sheegtay dabka inay u shidin waxay weyday qoryihii biyihii waa lacag qoryihiina waa lacag wax qaraxan ugu shuba hadda way yaalaan bay tiri oo dad islaam ah ii keenay wax yar oo ugu shuba dabka laakiin waxay tiri qorigii iyo biyihii isliida aan ku dari lahaa baan waayay marka ilaahay darti ku soo gurmada qoyskan insha Allah salaamu calaykum halkaan maxay ahayd gurigan waa buushkan yarka baa guri noo maxay ahayd gabar muslim oo walaalshana oo gabar muslim baa na siisay gurigan oo na tiri maxay ahayd